waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena xogta dahsoon waana 17 bishii January 2019 qodobada barnaamijka aynu ku soo qaadanayno waxa kamid ah xiisado hor leh oo Mareykanka iyo Ruushka ku soo dhaxgalay arrimaha ku saabsan gantaalka cusub ee Ruushku dhawaan samaystay iyo goobta ammaanka ee Mareykanku soo jeediyay in Kurdiyiinta looga sameeyo waqooyiga Suuriya Iran oo wax kama jiraan ku tilmaantay hajabaadaha Israa'iil ee ku saabsan inay Iran ciidamadeeda kala baxdo Suuriya maxaa kala qabsaday ciyaaryahan Cristiano Ronaldo iyo askarigii Sacuudiga ah ee magaciisa weydiiyay qodobo kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamijka dawladda Ruushku waxa ay sheegtay inay Mareykanku diideen oo iska indhatireen qorshe lagu tusi lahaa oo ay ku arki lahaayeen gantaalka cusub ee Ruushku samaysteen ee muranka dhaliyay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa habeenkii xalay waxa uu sheegay inay Mareykanku diideen soo jeedin ay Ruushku u gudbiyeen oo ay doonayeen inay arkaan oo wax ku ogaadaan gantaalka cusub ee Ruushku samaystay kaas oo ay Mareykanku ku eedeynayaan inay samaysashadiisu xadgudub ku tahay heshiiskii hubka halista ee ay labada wadan hore u wada galeen Lavrov waxa uu sheegay in wada hadallo ay labada dhinac toddobaadkii hore ku yeesheen magaalada Geneva ay Ruushku u bandhigeen Mareykanka inay khubaro Mareykan arkaan gantaalka Ruushka laakiin ay ragga Mareykanka u joogay wada hadalladaasi diideen soo jeedinta Ruushka oo mar kale ku celiyeen dalabkoodii ahaa inay Ruushku burburiyaan oo baabi'iyaan dabeetana baabahda ka dhigaan hubka ay Mareykanku u aaminsan yihiin inuu xadgudub ku yahay heshiiskii quwadda nukliyeerka ee heerka dhexe wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku waxa uu dhaliilay diidmada Mareykanku ay diideen inay gantaalka meel dhow ka eegaan oo sheedda ka halacsadaan waxaana uu ku sifeeyey inay diidmada Mareykanku hordhac u tahay rabitaan ay ku doonayaan inay kaga baxaan heshiiska hore looga gaadhay hubka halista dhankeedana wakiil u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Andrew Thompson ayaa waxa ay salaasadii sheegtay inay Ruushku sii wadaan xadgudubyadoodii ka dhinka ah heshiiska lagu xakameynayo hubka khatarta ah ee wax baabi'iya hoosna loogu dhigayo tiradiisa iyo tayadiisaba khilaafka labada wadan ee Ruushka iyo Mareykanka ee ku salaysan gantaalka cusub ee Ruushku samaysteen ee aan wax loo dhigaa jirin ayaa waxa uu imanayaa iyadoo ay labada dal ku kala aragti duwan yihiin waxa xal noqon doona waqooyiga Suuriya oo ay ciidamada Mareykanku bilaabeen inay ka baxaan kadib aragtida Mareykanka ee ku aadan in waqooyiga Suuriya laga sameeyo goobo ammaan ah oo masaafo ahaan 20 kiiloomitir noqon kara oo ay ku nabad galaan kooxaha Kurdiyiinta Suuriya soo jeedintaasina ay noqotay mid ay soo dhaweyso dawladda Turkiga ayaa dhanka kale dawladda Ruushku waxay sheegtay in militariga Suuriya uu yahay ka xaq u leh inuu gacanta ku dhigo maamulidda iyo ilaalinta amniga waqooyiga Suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo xalay u waramay warfadiyeenada isagoo ku sugan magaalada Moscow waxa uu xalka goowa ku tilmaamay in waqooyiga Suuriya la geeyo ciidanka xukuumadda Suuriya lagana bilaabo hirgelinta hanaankii dawladeed ee hore uga jiray halkaasi muddo 7 sanadood ka hor madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isagu waxa uu toddobaadkan bartamihiisii sheegay in fikradda ku saabsan in deegaamo ammaan ah laga sameeyo waqooyiga Suuriya ay ka mid ahayd waxyaabaha ay khadka telefoonka kaga wada hadleen madaxweynaha Mareykanka waxaana la filayaa in arrintan lafteeda ay ka wada hadli doonaan madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka marka ay yeeshaan kulankooda ku qorshaysan 23 bishii January fikradda uu soo jeediyay madaxweynaha Mareykanka ee goobo ammaan ah laga sameeyo waqooyiga Suuriya ma aha mid ay ku qanceen Kurdiyiinta Suuriya laftoodu oo iyagu ahaa dadkii la doonayay inay gabaad ka dhigtaan goobahaasi waxaana sarkaal u hadlay kooxaha Kurdiyiinta Suuriya oo waramay wakaaladda wararka ee France Press oo sheegay inay ogol yihiin oo kaliya in la kala calaamadiyo meesha u dhaxaynaysa iyaga iyo ciidamada Turkiga isla markaana halka la calaamadiyay la dhigo ciidamo ka socda qaramada midoobay ama Turkiga cadaadis lagu saaro inaanay marnaba soo weerarin deegaanada Kurdiyiintu gacanta ku hayaan waqooyiga Suuriya ciidamada Mareykanku ka baxayaan ayaa ah deegaan aan xasiloonayn oo aan la isku halayn karin iyadoo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay cadeysay in qaraxii shalay ka dhacay magaalada Manbij ee dalka Suuriya ay ku dhinteen 4 qof oo kala ah 2 askari
sarkaal hore uga ruqsaystay ciidamada iyo qof rayida oo u shaqaynayay wasaaradda difaaca ee dalka Maraykanka. dhanka kale jamhuuriyadda Iiraan oo qaybka dagaalka ka soconaya waddanka Suuriya taageero dhan kasta aan la dhinac taagan xukuumadda Bashaar al-Assad ayaa waxa ay jawaab ka bixisay hanjabaadihii isdaba yaalay ee ay Israa'iil maalmihii u dambeeyay kaga dalbanaysay inay Iiraan ciidankeeda kala baxdo waddanka Suuriya. taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee Iiraan Major General Mohammed Ali al-Jacbari ayaa waxa uu sheegay inay Iiraan sii joogteynayso joogitaankeeda Suuriya, shaqadoodana ay halkaa ka sii wadayaan la taliyayaasha militari ee Iiraaniyiinta ah ee Suuriya ku sugan iyo ciidamada ilaalada kacaanka ayba, iyadoo hubka Iiraanna sii ooli doono ciidda Suuriya. waxaana uu generaalka reer Iiraan uga digay Israa'iil inay iman doonto maalin ay gantaalaha Iiraan ku hooban doonaan madaxyada Israa'iiliyiinta sida uu hadalkiisa u dhigay. dowladda Iiraan ayaa kaalmo militari oo hub iyo ciidanba isugu jirta waxa ay siinaysay xukuumadda Bashaar al-Assad muddadii 7 sannadood ahayd ee u dambeysay ee dagaalka sukeeye ka socday waddankaasi, iyadoo uu jiro warwar ay Israa'iil ka qabto joogitaanka xilliga dheer ah ee ay ciidamada Iiraan ku sugnaadaan gudaha Suuriya. waxaana Israa'iil toddobaadkan ku hanjabtay inay burburin doonaan ciidamada Iiraan haddii aanay si degdeg ah uga bixin Suuriya, iyadoo warwarka Israa'iil ka qabto joogitaanka Iiraan ee gudaha Suuriya uu dhowaan sii kordhay kadib markii ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Iiraan ay qalab dhanka isgaarsiinta ah qaab qarsoodiya ugu xidheen buuraleyda Golan Heights oo ay Israa'iil haysato. waxaana qalabka halkaa Iiraan ku rakibtay ay Israa'iiliyiintu ogaadeen oo kaliya toddobaadkan gudihiisa, dabeetana ay ka duqeeyeen dusha oo halkaa ku burburiyeen. Iiraan ayaa ku xiran Israa'iil oo xerogelisay, waxaana ay ka fadhidaa dhanka xuduudda Lubnaan oo ay ku sugan yihiin wakiilada Iiraan oo ah ururka Xisbullaahi oo haysta in ka badan 450,000 oo gantaalaha dagaalka ah. dhanka Falastiinna waxaa ka fadhiya wakiilada Iiraan oo ah ururka Xamaas oo haysta 150,000 oo gantaal. dhanka Suuriyana waxaa ka fadhiya ciidamada ururka Xisbullah. militariga Suuriya, ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ee ku sugan Suuriya, maleeshiyaadka Shiicada ay laga soo ururiyay meelo ka mid ah dalalka Carabta iyo wadamada Aasiyada dhexe, iyo Ciraaq oo ay fadhiisimo ku leeyihiin maleeshiyaadka Shiicada ah ee ka dhinac dagaalama militariga Ciraaq dagaalkooda ay kaga soo horjeedaan jamhadda dowladda Islaamiga ee Daesh. waxaana intaas oo dhan sii dheer weliba saaxiibka koowaad ee Iiraan oo ah dalweynaha Ruushka, iyadoo Iiraan lafteeduna aanay halkaa ka fogeyn. waana xilli xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo uu dhowaan u sheegay madaxda dalka Ciraaq inay Maraykanku ka warhayaan in Israa'iil ku tala gashay inay duqeybo militari ka fuliso deegaamo ka mid ah Ciraaq oo ay aaminsan tahay inay adeegsadaan maleeshiyaadka Shiicada ee ka dagaalama Suuriya. waxaana uu Pompeo sheegay inay Israa'iil ku adkaysanayso in markasta oo ay duqeyso oo ku daciifiso gudaha Suuriya maleeshiyaadka Shiicada ee Iiraan soo ururisay ay haddana dib isugu soo abaabulaan xeryo ku yaala gudaha Ciraaq. magaalada Jidda ee galbeedka boqortooyada Sacuudiga waxaa xalay ka dhacday ciyaartii finalka ee koobka kubadda cagta ee Super Cup-ka ee dalka Talyaaniga, waxaana ciyaarta oo dhex martay kooxaha Juventus iyo AC Milan ka soo qayb galay xidiga dhanka kubadda cagta oo caalamiga uu ka mid yahay ciyaaryahanka 5 jeer ku guuleystay xidignimada adduunka ee Cristiano Ronaldo, oo isagu habeenkii xalayna kooxdiisa cusub ee Juventus u qaaday koobkii halkaa yaalay. haddaba markii ay ciyaartooyda kooxda Juventus soo geliyeen boqortooyada Sacuudiga ayaa saraakiishii immigrationka ama socdaalka ee ku sugnayd madaarka Boqor Cabdicasiis ee magaaladaasi Jidda waxay ciyaaryahan Cristiano weydiiyeen magaciisa, iyagoo si ka fiirsasho leh isugu eegay sawirka baasaboorkiisa ee uu sitay iyo muuqaalkiisa wejiga, dabeetana weydiiyey magaciisa oo ku celiyey haddana magaciisa. waana arrinta ay daaha ka qaaday jariiradda Cukaad ee ka soo baxda Sacuudiga, taasoo muujisay cadhada ka muuqatay wejiga ciyaaryahanka markii askarigu weydiiyey magaciisa. waana arrinta saacadihii la soo dhaafay ugu hadalhaynta badnayd baraha xidhiidhka bulshada ee Sacuudiga. dhowaan ayay ahayd markii wasiirka arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudiga Amiir Cabdicasiis bin Sacuud bin Naif uu digreeto ku soo saaray in si aad ah loo hubiyo cid kasta oo soo galaysa waddankaasi, iyadoo aan loo eegin miisaanka shakhsiyadeed ee qofkaasi ku leeyahay bulshada dhexdeeda ama dalka uu ka soo kicitimay ama baasaboorka uu sito toonna.